maanta qisadeennu waxay ku saabsan tahay saxaabigii jaliilka ahaa ee la odhan jiray Salmaan al-Farisi, Allaha ka raali noqdee. Wuxuu ku dhashay dalkii Faris la dhihi jiray ee maanta loo yaqaano Iiraan. Aabbihii wuxuu ahaa nin maalqabeen ah oo aad u jeclaa wiilkiisa, xitaa mararka qaar guriga kama oggolaan jirin inuu ka baxo. Qoyskiisu waxay caabudi jireen dabka, Salmaanna waxaa loo dhiibi jiray ilaalinta dabka loo arkayay mid quduus ah, laakiin qalbigiisu mar walba wuxuu isweydiin jiray kani ma ilaaha xaqa ahba. Maalin ayuu maqlay codad ka imaanaya kaniisad ay masiixiyiin ku cibaadaysanayeen. Wuxuu galay gudaha, wuxuuna la dhacay cibaadadooda. Markii uu la hadlay culimmadoodii, wuxuu ogaaday inay jiraan dad raadinaya ilaaha kaliya ee runta ah. Go'aankiisa awgiis, aabbihiis aad buu u carooday, wuxuuna ku xiray guriga si uusan uga bixin. Hase yeeshee Salmaan wuu baxsaday, wuxuuna la safray dad u socday dhulka Shaam. Sanado badan ayuu u kala wareegay culimo wanaagsan, mid kastana markii ay gooradu ku soo xaadirto wuxuu u tilmaami jiray culimmadii xigtay. Ugu dambayn, wadaadkii ugu dambeeyey wuxuu yidhi, waxaa soo dhow wakhtigii nabigii ugu dambeeyey uu soo bixi lahaa. Wuxuu ka soo bixi doonaa dhulgeeda timireed leh, wuxuu aqbalaa hadiyadda, laakiin ma cuno sadaqada. Dhabarkiisana waxaa ku yaal calaamadda nabinimada. Salmaan wuxuu u baxay inuu raadiyo nabigaas. Intii uu safarka ku jiray, ganacsato ayaa khiyaanay, waxayna u iibiyeen addoon ahaan. Ugu dambaynna waxaa la geeyey magaalada Madiina. Markii uu maqlay in Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam yimid Madiina, wuxuu bilaabay inuu hubiyo calaamadihii loo sheegay, wuxuuna u geeyey sadaqo, nabiguna ma cunin. Markii dambena wuxuu u geeyey hadiyad, nabiguna wuu cunay. Dabadeedna wuxuu arkay calaamadii nabinimada ee dhabarka nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tiilay. Markaas ayuu ooyey farxad darteed, wuxuuna qaatay islaamka. Salmaan wuxuu ka qayb galay adeegga islaamka intii lagu jiray dagaalkii Khandaq. Isaga ayaa soo jeediyey in god weyn laga qodo hareeraha Madiina si looga difaaco cadowga. Fikirkaas wuxuu noqday sabab muhiim ah oo muslimiintu ku badbaadeen. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad u jeclaa Salmaan, wuxuuna yidhi, Salmaan wuxuu ka mid yahay ahalkayga, ahlu beydka. Qisada Salmaan al-Farisi waxay ina baraysaa in qofka si daacad ah u raadiya runta uu Alle ku hanuunin doono. In aad dhibaatooto oo imtixaan badan martana waa sunnada Ilaahay, oo waa la imtixaanaa dadka wanaagsan. Sabir kadibna Ilaahay wuxuu siiyaa guusha. Sida Salmaan al-Farisi, Ilaahay raalli ha ka noqdee.